madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gudoomiyay shir afar geesood ah oo ay wada qaateen madaxweynayaasha jamhuuriyadda Kenya Mudane William Ruto, madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda Itoobiya Mudane Abiy Ahmed. shirkan ayaa looga arinsaday sidii loo mideen lahaa howlgallada lagu ciribtirayo argagixisada iyadoo ay madaxdu wada falanqeeyeen hanaanka fulinta qorshaha Muqdisho ee ka soo baxay shirkii maalmihii la soo dhaafay ay ku yeesheen wasiirada gaashaandhigga iyo taliyayaasha ciidamada xoogga dalalka Soomaaliya, Kenya, Itoobiya iyo sidoo kale Djibouti. madaxda ayaa waxa ay wadajir u bogaadiyeen guulaha ciidamada Soomaaliyeed ee ka gaareen howlgalladii loogu xoreynayay deegaano badan oo ka tirsan dalka, kuwaas oo argagixisadu ka soo maleegi jireen falalka guracan iyo sidoo kale amni darrada heer dal iyo sidoo kale heer gobol, waxaana ay hoosta ka xariiqeen muhiimadda ay leedahay in la sameeyo howlgal ay si wadajir ah u fulinayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada dowladaha Djibouti, Kenya iyo sidoo kale Itoobiya, kuwaas oo lagu ciribtirayo argagixisada Al-Shabaab. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga mahadceliyay madaxda dalalka Kenya William Ruto, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Itoobiya Abiy Ahmed iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle siday u ajiibeen martiqaadka uu u fidiyay, isaga oo tilmaamay in shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed ay ka go'an tahay adkeynta xasiloonida gobolka iyo sidoo kale dabargoynta argagixisada. Cabdinaasir Socdaal, Bilan Radio.